taniya markii aynu garaadsanay waxaynu maqlaynay Falastiin iyo halganka dadkeedu kula jiraan Yahuudda haysata dhulkooda dhowrkii sanaba waxa dhex mara labada dhinac dagaallo aan waxba la isku reeban qolo kastana ay adeegsato hubiya awood wixii ay markaa haysato haddaba ma dhacday inaad isweydiisay sidee ku qabsadeen Yahuuddu dhulkan maxay tahay sababta ay u tahay Qudus iyo dhulka ay ku taalaba fagaare markasta Kristan Yahuud iyo Islaamba ay ku loolamaan sidii qolaba ay gacanta ugu dhigi lahayd muuqaalkeenna maanta ayaynu ku eegi doonnaa qaabkii dhulkan barakaysan ay Yahuuddu kula wareegeen asalkoodii hore meesha ay ka yimaadeen iyo waxa ay ku doorteen dhulka Falastiin oo ay meel kale u dooran waayeen waxaynu u kala qaybin doonnaa laba qaybood qaybtan koobaad ayaynu isla baran doonnaa dhulka Falastiin iyo asalkeedii hore cidda degi jirtay halka qaybta labaad aynu ku lafaguri doonno sidii ay Yahuuddu ku qabsadeen dhulkan ilaa maantana uu gacantooda ugu jiro magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Waabari Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta dhulka maanta loo yaqaano Falastiin ayaa horey lagu yaqaanay dhulkii Kancaaniyiinta waxaana la isku oran jiray magacan dalalka Falastiin Syria Lubnaan iyo gobollada galbeed ee dalka Jordan waxayna taariikhda dhulkani u noqonaysaa bilowgii aadamaha gaar ahaanna xilligii Nabi Nuux calayhi salaam sidaynu wada ogsoonnahay markii Nabi Nuux dhambaalkii uu waday ay dadkiisii qaadan waayeen Ilaahay wuxuu u soo diray duufaan uu ku halligay dhammaantood dadka badbaaday ee raacay doontii Nabi Nuux waxaa ku jiray 3 wiil oo uu dhalay oo kala ahaa Sam, Ham iyo Yaafith doontii Nabi Nuux ayaa ku xiratay ama gaartay buur la yiraahdo Juudi buurtan ayaa lagu sheegay Quraanka waxaana la tilmaamaa inay ku taalo koonfur bari Turkiga kadib wiilashii Nabi Nuux ayaa midba dhul gaar ah u guuray Sam wuxuu degay jasiiradda Carbeed Hamna wuxuu degay waqooyiga Afrika halka Yaafithna uu degay galbeedka ama meesha ay dhacaan maanta dalalka Yurub waxaynu u soconnaa oo uu muuqaalkeenna maanta daaran yahay Sam bin Nuux sidaynu sheegnay Sam wuxuu degay jasiiradda Carbeed markii uu tarmay carruurna uu yeeshay waxa dhacday in dadkii ka farcamay ay nolosha qallafsan ee ka jirta jasiiradda Carbeed ee ku suntan saxaraha iyo biyo la'aanta ay u adkaysan waayeen go'aansadeenna inay ka hijroodaan una guuraan dhul kale dhulka wuu xilligaasi sahankoodii gaaray ee ay go'aansadeen inay saldhigtaan wuxuu ahaa dhulka loo yaqaanay Kancaan oo ah meesha ay maanta dhacdo Falastiin dhulkan ayaa ahaa dhul la beeran karo oo ka nolol duwan dhulkii jasiiradda Carbeed dadkan markii ay soo gaareen dhulkan waxay awood u yeesheen inay boqortooyo taariikh iyo dhaxal reebta ay yagleelaan dhammaadka qarnigii 12aad ee milaadiga ka hor waxaa dhacay dagaallo isxigxigay oo ku soo noqnoqonayay deegaanadan qabaa'il degi jiray Greega iyo dhulkii ka agdhowaa ayaa damcay inay qabsadaan oo xukunkooda gaarsiiyaan dalka Masar oo daris la ahaa dhulka Kancaaniyiinta dadkan ayay masaaridu u bixiyeen shucubtii badda maxaa yeelay waxay ka soo duulaan tegi jireen dhanka badda luqadda Greegana waxaa loo yaqaanay Balesto way ku guuldarraysteen inay qabsadaan Masar taasoo ka dhigtay kuwo indhahooda u jeediya dhulkii ay dariska ahaayeen Masar ee Kancaan duulaano joogto ah ayay ku qaadi jireen dadkii deganaa dhulkan ilaa markii dambe ay awood u yeesheen inay qabsadaan oo ay saldhigtaan deegaanada la yiraahdo Yafa iyo Gaza dhulkan ayaa markii dambe lagu dhajiyay magaca Falastiin iyadoo loo nisbaynayo magaca qabiilkan ka soo duulaan tagay Greega ee aynu niri waxa loo yaqaanay Balesto dhulkii Kancaan ayaa u qaybsamay 2 qaybood deegaanada dhaca xeebta sida Gaza iyo Yafa oo ay deganaayeen qabiilka Balesto iyo deegaanada dhaca gudaha oo ay iyagana deganaayeen reer Kancaan muddo kadib waxay wada deganaadaanba waxa dhacday inay isku dhex milmeen ugu dambeynna magaca guud ee deegaanadan wuxuu wada noqday Falastiin muddo kadib waxa dhacday in Nabi Ibraahim calayhi salaam uu soo gaaray dhulka Falastiin isagoo ka soo hijrooday Ciraaq Nabi Ibraahim ayaa waxa ugu dhashay deegaankan wiilkiisii Isxaaq oo isaguna noqon doona nabi waxaana u dhashay xaaskiisii Saara Nabi Isxaaq isaguna wuxuu dhalay inan uu u bixiyay Yacquub oo isaguna noqon doona nabi Yacquub ayaa sidoo kale loo yaqaanay ama lagu naanaysi jiray Israa'iil waana nabiga ay reer bani Israa'iil ku abtirsadaan waana halkan meesha ay ka bilaabanayso sheekada reer Israa'iil ee dhulka Falastiin Nabi Yacquub ayaa dhalay 12 wiil 12kan waxa ku dhex jiray inan noqon doona nabi oo ah Yuusuf calayhi salaam waxa dhacday in Nabi Yuusuf ay walaalihii u tashadeen dhex martayna sheeko dheer oo ku soo idlaatay inay ku tuuraan
ceelkan ayaa laga saaray waxaa la geeyey masar ugu dambaynna wuxuu noqday waaligii masar dhulkii falastiin ee uu aabbihii iyo walaalihii degganaayeen waxaa ka dhacday abaar sababtay ugu dambayn in nebi yacquub iyo carruurtiisiiba ay u hijroodaan una guuraan masar oo ahayd meeshii uu nebi yuusuf ka arriminayey reer banu israa'iil waxay deegaan ka dhigteen masar way tarmeen laakiin waxaa dhacday in masar ay gacanta u gashay faraaciin qibdiyiin ah oo aan diir naxal lahayn way addoonsadeen reer banu israa'iil waxayna ka dhigeen dabaqadda ugu hoosaysa shacabkii masar ilaa uu ilaahay u soo diray nebi muuse calayhi salaam nebi muuse ayaa reer banu israa'iil ka saaray dulmigii fircawn waxay dhex jeexeen oo ay mareen badda dhexdeeda iyagoo ka cararaya dulmigii faraaciinta qisadii caanka ahayd ee uu alle ku sheegay qur-aanka ee ku soo idlaatay inuu qarqoomay fircawn sidaana ay ku badbaadeen reer banu israa'iil markii ay ka badbaadeen fircawn waxay damceen inay dib ugu noqdaan dhulkii falastiin ee ay markii horeba ka yimaadeen laakiin si ay ugu noqdaan waxa la faray inay la jihaatamaan oo ay la dagaalamaan dadkii xilligaasi haystay dhulkan oo ahaa dad joog iyo xoogba leh laakiin reer banu israa'iil ayaa ka madax adeegay amarkii alleh waxayna ugu jawaabeen nebi muuse jawaab u dhignayd ma gelayno inta ay dadkaasi joogaan oo ay ula jeedaan dadkii haystay falastiin waxay sidoo kale sii raaciyeen hadalkooda israaca adiga iyo ilaahaagu oo soo dagaalama annaguna halkan ayaan idinku sii sugaynaa waxay sidan ugu jawaabeen oo ay ula hadlayaan nebi muuse calayhi salaam ilaahay ayaa ku soo rogay tiih iyo jahawareer kana xaaraantimeeyey inay galaan dhulkan barakaysan 40 sano oo xiriir ah reer banu israa'iil ayaa afka saaray oo u jihaystay saxaraha weyn ee dhaca gobolka siinaay ma garanayaan meesha ay u socdaan iyo meesha ay ka socdaanba nebi muuse calayhi salaam wuxuu dhintay intii ay ku jireen tiihan ama jahwareerkan sidoo kale dhammaan dadkii diiday amarkii nebiga ee laga xarimay gelidda dhulka barakaysan ee qudus iyo falastiinba waxay dhinteen dhammaantood 40kii sano ee ay tiiha ku jireen kadib waxaa yimid yuushac binu nuun oo sabab u noqday inay reer banu israa'iil dib ugu soo noqdaan falastiin ayaa waxaa ka curatay dowlad loo yaqaanay dowladdii garsoorayaasha oo jirtay ku dhowaad qarni iyo bar dowladdan waxaa ka arrimin jiray 12 garsoore kadib waxaa yimid nebi daa'uud calayhi salaam oo awood u yeeshay inuu dib u mideeyo reer banu israa'iil oo xilligaasi dagaallo iyo colaado ay dhex yaaleen wuxuuna isugu geeyey hal boqortooyo boqortooyadan ayaa ah boqortooyadii ugu horaysay ee ay reer banu israa'iil ka samaystaan falastiin kadib waxaa xilkii boqortooyada ku wareegay nebi sulaymaan calayhi salaam oo ahaa boqor uu ilaahay gaarsiiyey xukunkiisa adduunka oo dhan laakiin markii uu dhintay nebi sulaymaan colaado iyo dagaalo ayaa dib uga dhex curtay reer banu israa'iil waxay u kala jabeen 2 boqortooyo la baxday magaca yahuuda oo la wareegtay deegaanadii ku hareeraysnaa qudus iyo boqortooyo iyaduna la baxday israa'iil oo qabsatay deegaanadii soo haray labadan boqortooyo ayaa si joogto ah u dagaalami jiray waxay isugu habarwacan jireen oo gaashaanbuur la kala samaysan jireen boqortooyooyinkii dariska la ahaa mid ka mid a waxay gaashaanbuur la samaysatay boqortooyadii masar halka kuwii soo harayna ay gaashaanbuuraysi la samaysteen boqortooyadii aashuuriyiinta oo uu fadhigeedu u ahaa dalka ciraaq boqorkii masar oo la ohan jiray xilligaasi shiishinq ayaa isaga oo ka faa'iidaysanaya khilaafaadkan awood u yeeshay inuu qabsado oo uu xukunkiisa hoos keeno boqortooyadii yahuuda masar waxay ka taliso dhulkan waxaa dhacday in muddo yar kadib boqortooyadii aashuuriyiinta ee fadhigeedu u ahaa dalka ciraaq ay duulaan ballaaran ku soo qaaday dhulkii boqortooyada israa'iil waxay wada qabsadeen dhulkii boqortooyadan ka arriminaysay reer banu israa'iil ayaa damcay inay ka dhiidhiyaan xukunka aashuuriyiinta ee deegaankooda qabsaday laakiin aashuuriyiintii oo ka carooday iskudayga reer banu israa'iil ay ku doonayeen inay ka hoos baxaan xukunkooda ayaa xirxiray badi dadkii deegaanka kadibna iyagoo maxaabiis ah ayay geeyeen ciraaq dhinaca kale boqortooyadii yahuuda ee ka talin jirtay qudus taarikhyahanada ayaa sheega in mar kale uu qabsaday boqorkii la odhan jiray nabukhadnasr kaasi uu ka geystay xasuuq aan loo meeldayin gacantana ku dhigay magaalada qudus wuxuu ka dhisay xukun isaga hoos taga laakiin haraadigii ka haray reer banu israa'iil ayaa damcay inay ka dhiidhiyaan gumaysiga uu hoosgeeyey nabukhadnasr way dagaalameen laakiin nabukhadnasr ayaa ciidamadiisii oo uu la aaday dhanka ciraaq dib ugula soo noqday dhulkan wuxuuna markan si gebiyi ahaana u burburiyey magaaladii qudus isagoo tirtiray raad kasta oo ay lahaayeen yahuuddu halkan ayayna ku soo idlaatay dowladdii ay yahuuddu ka dhisteen dhulkan 4 qarni ayay reer banu israa'iil deganaayeen dhulkan
afartaasi qarni ayay nebiyadii loo soo diray ku dadaaleen inay u dhisaan boqortooyo iyo xukun ay adduunka oo dhan ku xukumaan allana ku caabudaan. laakiin dadkan oo ah dad madax adag, ilaahayna ku lacnaday qur-aankiisa, ayaa dadaal kasta oo ay nebiyadii ilaahay soo diray u sameeyeen ka dhigay hal bacad lagu lisay, ilaa markii dambe si gebiyahana looga ciribtiray dhulkan. waxaana dib u degay carabtii aynu sheegnay bilowgii muuqaalka inay ka soo hijroodeen jasiiradda carbeed reer banu israa'iil. wixii ka soo haray waxay noqdeen kuwo aaday galbeedka, gaar ahaanna dalalka yurub iyo sidoo kale eshiya, waxayna noqdeen dad kala dhantaalan oo aan hal dowlad ku midaysnayn ilaa laga soo gaaro dhowr boqol oo sano ka hor, gaar ahaanna burburkii dowladdii cismaaniyiinta. qaybta xigta muuqaalkeennan ayaynu ku eegi doonnaa sida ay hadda awood ugu yeesheen inay dib u qabsadaan dhulkan.